secure now. gudaha jaamacadda Gaarisa ayaa waxa lagu qabtay olole looga hadlayay qaabkii looga hortagi lahaa xadgudubyada ay geystaan Xagjirka. kulankan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda Agti ayaa waxa ka soo qayb galay isku duwaha ammaanka gobolka Waqooyi Bari Ambassador Maxamuud Saalax, gudoomiye ku-xigeenka ismaamulada Mandera iyo Wajeer iyo sidoo kale saraakiil kale. madaxa barnaamijkan oo ka tirsan hay'adda Agti oo saxaafadda la hadlay ayaa tilmaamay muhiimadda xog isweydaarsigan. We thought that having this event at Garissa University would be important for us because for us we take this to be a symbol of resilience, a symbol of how communities can be able to overcome threats of violent extremism. This is an institution which went through a very horrendous and brutal attack. But it's an institution which has risen from the ashes, where there's a lot of vibrancy and there's a lot of vibrancy which is going on in this area, and so it's truly one of the examples which other institutions should need to emulate. That you do not have, that violent extremism and terrorism is not going to defeat the will. It is not going to defeat the collective power of community. It is a good example of what happens when communities and security agencies and academic institutions come together. dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka ismaamulka Mandera oo kulankan kamid ahaa ayaa nooga waramay dhibaatada Xagjirka, wuxuuna intaas raaciyay macallimiinta la shaaciyay inay ka soo baxaan iskuulada. waxaa dhacday maalin hore iskuulada Qarsa in dagaal ay ka dhacay, taasoo sababtay macallimiin badan oo ka yimaaday gobolka Waqooyi Bari in dib loo celiyo Kenya. taasayto waxaan leenahay wax fiican maaha. national government waxaan ugu baaqaynaa waxyaalaha sokotan ay dhacaan in macallimiinta meesha joogtay oo shaqaalaha meesha aan laga qaadin, waayo taasida waxay tusinaysaa inaad meesha aad ka baxtay. marka taas ma doonayna ninka shaqaalaha meesha dib lagu geystay meeshiisa inuu ku adkaado loo baahan, waayo meeshanayto ma aha naan local kale, locals ka taa waa dhintaan. madax badan ku dhimatay dhulkaasayto, chief ku dhintay, macallimiin oo Soomaaliha ku dhimatay, dad kale oo shaqaalaha korodiyo ku dhintay. marka ma ahan dadka naan locals kale loo dan leeyahay, waxa waaye umada kulliya nimankan ay toodan leeyeen. marka cidii wax loo geysta ay ka bixin meesha oo sidii loogu talagalay ha noqoto, cabsidaasna aan la muujinin. meel kasto shaqaalaha joogana in waajibkiisa sidii la rabay asugutay ee loo baahan yahay. isku duwaha ammaanka gobolka Waqooyi Bari Ambassador Maxamuud Saalax oo ku sugnaa xalfadan ayaa ku nuuxsaday arrimaha ammaanka gobolka, isagoo amaanay halka uu haatan marayo amniga. wuxuuna u digay dhalinyaro ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari oo ku biiray ururka Al-Shabaab. dad yar oo burcad ah oo ku xiran Al-Shabaab ku xiran oo ilmaheena Waqooyi Bari ka soo jeeda ayaa jira. kuwa magacooda waan haynaa. maalinta waan sheegay ilaa 35 ayaan ku haynaa magacooda Mandera oo Mandera ah. Wajeer waa 11, Gaarisana waxa weeyaan 17. waxaan u fidiyay maxaa la jiray xafis hadday soo noqdaan isoo dhiibaan hubka ay dhigaan waa la cafini. waalidkooda iyo shacabka ha u sheegan ha soo dhiibaan. hadday laakiin ay soo bixin waayaan hadee dawladda sharciga xoog leh ka qaadaysaa, tilaabo xoog leh ka qaadaysaa.